sabti taariikhdu ay ku beegan tahay 4 bisha 12 sanada 2021 taaliska booliiska iyo sidoo kale maamulka gobolka Banaadir ayaa si adag waxay uga hadleen dil loo geystay wiil iyo gabar walaalo ah oo lagu dilay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. afhayeenka booliiska Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay u suura gashay inay gacanta ku soo dhigaan ragga loo haysto dilka wiil iyo gabar walaalo ah oo lagu dilay wadada Makaal Mukarrama gaar ahaan meel aan ka fogeyn isgooska dabka. waxaana uu sheegay in la marsiin doono cadaaladda. waxa uu intaas ku sii daray in marnaba aysan aqbali doonin in dilka loo geysto dadka shacabka ah ee canshuurta laga qaado. sidoo kale ku-xigeenka gudoomiyaha gobolka Banaadir ee dhinaca amniga Cali Yara Cali oo ka hadlay arintan ayaa sheegay in marnaba aysan aqbali doonin maamulka gobolka Banaadir in lagu dhibaateeyo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho dadka shacabka ah ee iyagu loogu talagalay inay u adeegaan booliiska isla markaana aysan suuragal ahayn in marnaba dil loogu geysto bareer ah waliba magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Cali Yara Cali ayaa sheegay in ay maxkamadda marsiin doonaan isla markaana ay ku socdaan weli baaritaano loona baahan yahay cadeemo dheeraad ah si maxkamadda loo soo taago dadkan. adadii ka dhacday xalay abaaro 2:45 daqiiqo isgooska dabka ee lagu dilay Sakariye iyo Sawda ilaahay ha u naxariistee kiiskaasi waxaan ugu bashaaraynaynaa ehelkii in gacan ku dhigliyaashii iyo gaarigii falka geystayba la soo qabtay uuna ku jiro gacanta hay'adaha amniga. insha Allah waxaan rajaynaynaa wixii baritu ka dambeeya in waafajinta cadaaladda kaliya loo fadhiyo laakiin ay ku qalbi qowsadaan in la haayo dhibane ama ilaahay ha u naxariistee Sawda iyo Sakariye gaariga ay gacantiisa ku baxeen iyo taliskiisa intaba waan iska warhaynaa waxaana gacanta ku hay hay'adaha amniga. waxaan kale rabaa inaan warbixin idinka siiyo galabta oo ay tahay taariikhda 3 bisha 12 2021 waxaa asna ka dhacay kiis dil ah degmada Wadajir. kiiskaasna gacan ku dhiiglihii dilay marxuumka gacanta lagu haayaa wuxuuna ku jira gacanta ciidanka booliiska Soomaaliyeed. dhigliyaashaha ee geystay shilkii xalay iyo shirkii caawa labadaba inaan gacanta ku hayno sida ugu dhaqsiyaha badanna aan u marsiin doono baaritaanka iyo aan u gudbi doono hay'adaha garsoorka ee ku shaqada leh. waxaan rajaynaynaa in laga qaado tallaabo tusaale u noqota in askari dambe aanu dadkii loo xil saaray inuu ammaankooda ilaaliyo oo canshuurta iyaga laga qaaday mushaar looga dhigayay aanu sida ka muuqata bajaajtaas aanu xabad sidaas ugu gelinin dadka shacabka ah. taas yaan ilaahay maartay yaan ballan qaadaynaa. waxaan ka xunnahay runtii arrinta xalay dhacday iyo arrinta maanta dhacday labaduba waa laba fal oo aan cudurdaar lahayn. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay isla kiiskan loo geystay wiilka iyo gabadha walaalaha ah ee lagu dilay magaalada Muqdisho. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa amray laamaha ammaanka dawladda Soomaaliya in si degdeg ah maxkamad loo horkeeno askarta ka tirsan ciidanka xoogga ee Muqdisho ku dilay wiil iyo gabar walaalo ah habeen hore. Ra'iisul Wasaare Roble oo xalay soo saaray war qoraal ah ayaa sheegay inaysan aqbali karin askarta ciidanka dawladda Soomaaliya inay dilaan dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan isla markaana booliiska uga mahad celinaya soo qabashada eedeysanayaasha loo haysto dilalka. waxa uu sidoo kale ugu baaqay ehelada dhalinyarada lagu dilay magaalada Muqdisho inay heli doonaan cadaalad sida ugu dhaqsiyaha badan waxaana uu u diray tacsi tiiraanye leh. waxaan ka xunnahay oo aan murugada la qaybsanaynaa una tacsiyeenaynaa qoyskii ay ka geeriyoodeen Allah u naxariistay dhalinyaradii lagu dilay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho oo lagu kala magacaabay Sakariye Maxamuud Xuseen iyo sidoo kale Sawda Maxamuud Xuseen iyo sidoo kale Mahad Cabdiraxmaan Maxamuud oo xalay lagu dilay magaalada Muqdisho. waa tallaabo wanaagsan in ciidanka ammaanka soo qabtaan eedeysanayaashii waxaana la farayaa in si degdeg ah sharciga loo maro oo la horgeeyo maxkamadda si cadaaladda loo marsiiyo ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble.
ciidanka dowladda ayaa si bareer ah u dilay Sakariya Maxamuud Xuseen iyo sidoo kale Sawda Maxamuud Xuseen iyo Mahad Cabdiraxmaan oo xalay lagu dilay magaalada Muqdisho iyo habeen hore xilli ciidamada ay doonayeen in wadooyinka oo mashquul ah ay ku furtaan rasaasta. maamulka Puntland ayaa hakiyay gelitaanka magaalada Boosaaso iyadoo oo baabuurta lagu celinayo deegaanka Carmo oo 100 kiiloomitir u jira magaalada. waxaana maamulka Puntland ay sheegeen in laga cabsi qabo in ciidamo taageersan ay soo galaan magaalada. taliska ciidanka BSF ee xilka qaadista lagu sameeyay ciidanka ayaa la sheegay kaliya inay soo fasaxayaan baabuurta soo baxaysa. tallaabadan ayaa la rumaysan yahay in ay qayb ka tahay dhaqdhaqaaqyada ciidan ee dowladda ay ku sheegtay in ay ku sugayso ammaanka magaalada dekada leh ee Boosaaso. ciidamada kala taageersan BSF iyo sidoo kale madaxweyne Dani ayaa la sheegay in maalmihii la soo dhaafay ay si weyn u soo galayeen magaalada. waxaana waxgaradka magaalada ay sheegeen in aysan aqbali doonin dagaal inuu ka dhaco magaalada Boosaaso. xiisada ciidamada sida gaarka u tababaran ee BSF iyo sidoo kale madaxtooyada ayaa weli taagan. waxaana dowladdu sheegtay inay sii xoojin doonto dhaqdhaqaaqyada ciidan ee Boosaaso halka BSF ay ku sugan yihiin xeradooda oo dhacda bariga magaalada. guud ahaan warkii aad ka daawanayseen barteena Facebook iyo YouTube-ka ee Beran Radio waa inaga intaas daawada. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii uu ku soo gaaray fadlan like saar boggeena oo nagu soo biir si aad u heshid wararka joogtada ah sina share garee si asxaabtaada ay u gaaraan. mahadsanid ilaa dhamaadka haddii aad nala joogto daawade.